عبد الكريم شيخ موسى قلب الدقح وحان هاي مواطن صوماليين وأسرة دقال لما يطلق الصوماليين أنا أقول دقال كتيرة يا فلان جاري ورجع ما شقيسني الشقة جود مو يعني شقة جار ما أنا قبسني وحنوصل دقال لما النفط يدي يبيك ينوه ردتك الصوماليين يعني صهوري waxaan u shaqeynayo u taagnaa in la hadda in aan xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed qof kamid uu san ciil qabin inuu sanin gudnimo iyo inuu daciifnimo ugu hoos noolaado tashisheeya qorshayu kaas waa mabaadiir caynkaas ah markii aan arkay adigoo dadkaygii bad ku waayay oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kumali boos kumali oo guri kumali oo xoolo mali maxaa yeelay intaan ka tagay yaan danta ummadda u baxay anigoo sida ugu soo dhintay markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqeysay gaalka ayaa la iga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqmay waa la iga soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana ah la ila dhaqday markii aan arkay iyadoo intii la gardo duubay oo indhaha la iga xilay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iga calaysisay aadna iga naxsay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga ma qaan bay dhabaynahay waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyay aan qiyaasay in sawir laga qaadanayo isla markiiba diyaaradda lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joogto dhaanta markay ugu dul qabsadeen aflagaada markay iimiseen say caayayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xiran oo cagaha oo indhaha ka xiran oo gacmaha ka xiran waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxa iga dhacday oo qalbigaygu isweydiiyay inaanan dal lahayn waxaan arkay oo nisiri arxan malihid waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul baahay waxa iga baaday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyay oo hiil iyo hoob ay la garab taagay